بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha muslimiinta meel kastoy joogaan daafadaha caalamka kelimadan kooban ilaahay ka baryayna subxaanahu watacaala inuu nagu anfaco naguna arsuqo ikhlaas iyo asiga dartiis inaan wax u sheegno. kelimadani waa kelima cadiim ah aada iyo aada u qiimo badan, qof kasta oo naga mid ahna uu u baahan yahay inuu tadbiiqiyo, ku dhaqmo oo ku camal falo. ka hora alxamdu lilah intaa ka hora uu dhegaysto oo qalbigiisa u furo. alxamdu lilah maxaa yeelay shayga khayrka ah waxaa ku waansamaa qofka dhegaysi fiican dhegaysta oo qalbigiisa uu xaadir yahay oo maskaxdiisu ay diyaar tahay, qofkaasaa ku waana qaadanaya. ina fi dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid. waxaa ku waana qaadanaya dikriga iyo waanada ay waano u tahay qofkii qalbi leh, qalbi wax weeleeya, saliim ah, nabadgalay, caafimaadsan. liman kana lahu qalbun aw alqa samca wa huwa shahiid, maqalkiisina riday, dhegaystay, istimaac la yimid, xaadira ah oo aada iyo aada u qiimeynaya qaala allahu qaala rasuulah. ilaahay wuxuu yihi qaala allahu qaala rasuuluhu sala allahu alayh waali wasalam, iyo nabiga wuxuu yihi hada huwa diin. diintuna waa intaas aad maqlaysaan, waa sharcigaas alla uu samada ka keenay, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna lagu dejiyey, qur-aanka kariimka ee mutliga ee la akriyo ee laisku adoonsaday tilaawadiisa iyo axaadiista weeyaan. culimmaduna labadaas un bay sharxeyn oy faahfaahiyeen oy fahamkiisa caddeeyeen. marka dhegeysi baa loo baahan yahay. waxaa weeye kelimadani waa kelimo qof kasta oo aadama ah u baahan yahay. maxaa yeelay aadamo kasta waa khata, waa dembaabaa. wixii ambiyada iyo rususha oo ilaahay uu ilaaliyey oo iyaga laftirkooda mararka qaar ay culimmadu ama nusuustaba ay ka muuqato inay toobad iyo istikfaar badan la imaanayaan oo dayasho noogu sugan, iyagoo alla dhowray subxaanahu dembigoodina dhaafay. basharku intiisa kale waa dembaabayaa. kulu bni aadam khataa buu leeyahay nabiga calayh salaam. ibni aadam oo dhan waa gafayaa. wa khayru lkhataa'iina atawaabuun. inta khata iyo gaf ku dhacana waxaa u khayr badan kuwa toobad keena, istikfaar ka daba keena, alla u noqod iyo inaaba ilahay usoo laabtay subxaanahu watacaala u khayr badan. xadiidkaasoo axmed uu soo saaray fii musnadihi iyo imaamu tirmidi fii sunanihi, ibnu maajah isagana sunankiisa kusoo saaray, xaakimna uu leeyahay waa saxiix calaa shardi shaykheyn walam yukhrijaahu uu leeyahy. sheekh alalbani waa taxsiiniye xadiidkaas. xadiid اlqudsi wuxuu ilaahay ku leeyahay xadiid saxiixa haabit can rasuuli llahi sal l slam, muslim uu soo saaray fi saxiixihi alimaamu muslim. abu dar alkifaari radia allahu canhuna uu saxaabiga xadiidka warin uu yahay yaa cibaadii inakum tukhti'uuna alleyla wاnnahaara wa ana akfiru dunuuba faاstakfiruunii akfir lakum. habeeniya maalinba addoommahaygiyo waad gafaysaan, anna dunuubtaan dhaafaa, istikfaar iyo dambi dhaaf i weydiista waa inii dhaafayaa. saasuu leeyahay subxana wa tacaala. xadiid ilaahi baa la yihahda, xadiid qudsi. iga dambi dhaaf dalba waa inii dhaafayaa. habeeniya maalinba waad gafaysaan. gacanta ilaahay subxaanahu way fidsan tahay habeenkii iyo maalintiiba. habeenkii ninkii maalintii dembaabay inuu soo toobad keeno, maalintii ninkii habeenkii dembi ku dhacay inuu soo laabto. ilaahay subxaanahu wa tacala waa allaha raxmadda badan ee addoomihiisa u naxariista wey.
وحكلوا الله ليه في القرآن الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أنا قبوله إلهي لغفار بانهاي الله ضافد بدن وحنو ضافد بدنهاي لمن تاب وآمن قفك التوبت كيري سول لابته إيه سول النقض حمان نكو كدعا كدب إيه سول لابته إيه حق الله لابته إيه هذا ربي دنبك دافين وجرو عقامنا قفك دنبك كدعا هدونا سول لابني ربي قاس قفك اعتقاد سري آمين سن إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قفك انتو توبت كينا سوى مؤمن عمل صالح على كدن بيسي هنون كل صعدة رضا في بله سبحانه وتعالى آيات كره وحوله إليه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما من سياق العموم بكمته لما كلا صار قف وين قف دحاضة رق هوين دنبي النوع ويهي لما كلا بحناي من يعمل سوءا بالير قف الله على قفكي لي ماذا حمان أما نفتي سد المياه ظلمي ويناي شركي هاي إن الشرك لظلم عظيم إيو ظلمي قفك نفتي سو ظلمي آدمه ظلمي هضيبه لي ماذا وحياليه الله بعنا أو استغفار رأو لي ماذا يجد الله غفورا رحيما وحهلا يا الله حاله أضعفه ونحرست أضمه إلهي أضعف أضمه ونحرسته إلهي سبحانه وتعالى بشارة عظيمة وبشارة وين ولا ليال هدي دنبي انتو قفك قال لي يرادا كامر دعيس oo la yiraahdo waa noo tahay oo la yiraahdo cadaab baa ku waajibay oo la yiraahdo fursad iyo chance ma haysatid oo qofka asaga uu quusto oo soo dunyada ku joogo uu rajaba beelo qofka asaga waxa weeyaan noloshiisa khalkhal baa galay kaar baa ku dhacaysa shaqi buu noqonaya laakiin raxmad ilaahay baa waasac wa rahmati wasi'at kull shay naxariistaydu ilaahay wax walba way ka waasacsantay dambi kasto qofka uu la yimaado haduu toobad ka rabo uu dhaafay subhanahu wa ta'ala wa in balaqat anana as-samaa samada daruuraheeda baa gaadhay istighfaarta iyo toobadkeenka iyo alla u noqodkaasi rabbi baa kugu naxariisanaya oo kugu jeclaanaya markaas hadeena wixii dhib ahaa oo dhan buu ka difaacaya wixii masaayib ahaa oo dhan buu ka ilaalinaya wixii kurba oo dhan buu ka faydaya asagii baa Allah subhanahu wa ta'ala ku ilaashanaya kol hadaad noqotay adaan alla leeyahay oo Allah subhanahu wa ta'ala u soo laabanaya istighfaarta iyo dambiga oo alla laga dalbo inuu noo dhaafo dambi dhaaf dalab oo alla laga dalbo waxaa weeyaa waa sunnatu alambiyaa waalmursaliin ambiyada iyo rususha wadadoodii wey aadam baa basharkan oo dhan dhalay oo kasoo ka farcameen markii uu geedkii cunay waa isgartay oo rabbi u soo laabtay subxaanahu wa tacaala rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin waa kelimaadki ilaahay uu yihi subxaanahu wa tacaala كلمات بان سيني او لي يميدو وكتبت اقبل الى اليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ربي بعدين صوت دمي وما حريستي دورتي او كتبت اقبلي maxaa yeelay wuu soo laabtay istighfaar buu la yimid اغفر لنا buu yidhi ربنا اغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين waa soo laabtay meesha ibliis lacanahu allah markuu geedii uu waswaaskii iyo wixii oo dhan uu ka dambeeyey ee uu dambiga galay uu soo noqon waayey oo sujuuddii intuu diiday soo noqon waayey cisyaankii allah uu caasiyey uu toobadkeen iyo istikfaar uu ka dambaysiin waayey uu noqday malcuun ilaa qiyaami saaca ilaa abadi labad weligiiba uu lacnad u yeeshay maxaa yeelay uu soo noqon waayey ma aha wuu dambaabay keliya ee waxaa weeye intuu dambaabay ayuu haddana diiday inuu addoon noqdo rabbi usoo laabto aadamna intuu dambaabay yuu addoonnimo aqoonsaday inuu addoon yahay oo faqiir yahay oo baahan yahay markaasuu alla usoo laabtay markaasaa kurbadii iyo dhibaatadii iyo xanuunkii iyo wixii haystay o dhan ba ilahay ka qaaday oo u dhaafay subxaanahu wa tacala dembigiisa fataaba calayh oo ka toobad aqbalay subxaanahu wa tacaala marka aadam baa istikfaar la imaanaya calayhi salaatu wasalaam nabi aadam oo rabbi u noqonaya haddii wax kasta oo dhibaato ah oo ku qabsada aad rabbi u noqotona sidaasoo kale ilahay noogu dhaafaya subxaanahu wa tacaala istikfaartuna ka hortagna way samaysaa ka dabatagna way samaysaa wixii balaayo soo degaysay waa lagu dhaafaa waa lagu difaacaa wixii dhacayna ilahay uu ku kor yeelaa subxaanahu wa tacaala musiibo ma jirto
oo ma dhacdo ilaa dembi bay kusoo degtaa. dembiga asagana lama kor yeelayo musiibadaasi ilaa toobad alla noo soo noqdo subxaanahu wa tacaala mooye. in ilahay loo soo laabto. waxaa masaa'ibta dhacayso arkaysaan lacalahum yarjicuun bu ilahay leh, may soo laabtaan. inay soo laabtaan unbuu ilaahi subxaanahu wa tacaala wixii imtixaanana marinayaa, intuu dhaafi baana ka badan subxaana. wayacfu can kathiir. inta ilahay lagu caasi, ee ilahay lagu kufrin, ee shirki lala imaan, ee macsiya lagu dhici, ee habeen iyo maalinba la samayn, ee jahran waciyaanan banaanka lala taagan yahay, banaanka lala taagan yahay. axad alla subxaanahu wa tacaala ka xilmi badan oo ka maxuuha dulqaad badan ma jirto. maxaa yeelay intii wax laga sheego oo la caayo oo banaanka lala soo istaago wuxuu xarimay ayuu haddana roob siinaya, oo caafimaad siinaya, oo nolol fiican siinaya, oo adduunka ay ku noolyihin. laakiin mar buu ilaahay qabanaya subxaanahu wa tacaala. qabashadaa marna waxaa weeyaan lacalahum yadaracuun, bal inay soo laabtaan. marna intii la qabta ayaama lasii deynaynin, oo qabashada ilaahay u qabtay maba sii deynayo. marka lagu soo daayo oo lagu sii daayo inaad soo noqotaa la rabaa. hadduu qofka soo noqon waayo se wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya dhaalima ina akhdahu aliimun shadiid. ilaa qabashadiis waa ay aad u daran tahay wey. in allaha la yumli lidaalim buu nabigu lehy alayh salam xadidkaas oo ayaddaa ku fasiraya. xataa idaa akhadahu lam yaflitu, hadduu ilaahay uu qabto lam yuflitu ma sii daayo, ma fakiyo. marka waxaa weeyaan toobadkeenkan arkaysaan waxaa jaanis qofka loo siiyey intayna ciqaab dhicin in ilaahay subxana wa tacala loo soo laabto. hadday dhacdo ciqaabtii iyo musiibadiina rabbi loo soo laabto subxana wa tacaala. falawlaa id jaaahum basunaa tadaracuu, id jaaahum basunaa tadaracuu, haddii soo noqon lahaayeen. nabiy llaahi nuux calayhi salaam oo asagana ah awalu rasuulin ila alardi, rasuulka ugu horeeyey ee ardada ama basharka markii ay kufri iyo shirki la imaadeen. nebi aadam waxay ka dambeeyey ilaa 10 qarni bay dadku xunafaa ahaayeen, toosnaayeen, wanaagsanaayeen, muwaxidiin ahaayeen. markii ay dhammaatay waxaa bilowday shirkigii baa bilowday. inii khalaqtu cibaadii xunafaa ayuu leeyahay xadiisulqudsi nabiga calayh salaam waa lii ka warinayo, iyagoo toosan fajtaalatum shayaaiin, shaydaankii baa leexiyey. nabi nuux baa lasoo diray si uu dadka wadadii saxdeeda ugu soo duwa. hadaladiisii qiimaha badnaa waxaa kamid ah war waad gaalowday oo shirki baad ku dhacdeen oo macsiyaad dabaalanaysaan, laakiin fursad baa inay taalle istikfaar la imaada, war soo laabta intaan cadaab dhicin. biyaa lagu sii daayey, cirka iyo dhulkaba waa isgaareen. laakiin maxaa ka horreeyey 950 sano ayuu dhawaaqay oo si kastoo la hadlay. hadaladiisi marka waxaa kamid ah war dembigaad gasheen ha fiirinin, waxaad fiirisaan rabbi ghafaara oo inii dhaafaa jira, soo laabta. haddaad soo laabataan intuu dembigii dhaafa alle ayuu haddana barwaaqi iyo baraare iyo nicmayna sinayaay. saasuu leeyahay nabiga nuux alayh salaam, faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara. ilahay waa inii dhaafaya, soo laabta. yursili samaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum janaatin wayajcal lakum anhaara. yani bal inta istikfaarta lagu hela fiiri, dembi buu ilahay ku dhaafaya subxaanahu wa tacaala. maal baa lagu helayaa, caruur baa lagu helayaa, beerihii iyo barwaaqadii iyo dalagii baa soo baxaaya. walidalika xasan bisri kelimada mashhuurada nin baa u yimid markaasuu wuxuu ka sheegtay abaar, istikfaarta badi buu yihi. kubaa ka sheegtay awlaad la-aan iyo caqiimnimo, istikfaarta badi buu yihi. mid baa ka sheegtay xoolihii iyo dalagii oo bixila iyo beertii oo bixila, istikfaarta badi buu yihi. aayadunu daliishanaya waa aayad cadiima. istikfaarta waxaas o dhan bay camimaysa oo dhamaystiraysa oo isku soo aruurinaysa, oo in risaaqadii la waasiciyo, awlaadna la helo, caafimaadna la helo, dembi dhaafna la helo. wax ka fiican muxuu yihi? wax ka fiican male. maxaa lagu helaa? astakfirullah baa lagu helaa. ilaahayow dembiyaan gallay kasoo noqonay. ilaahiyna subxaanahu wa tacaala waa naxariisanaya, ciqaabtii iyo cadaabkii buu ceshanaya, dembi dhaaf iyo raxmad buu soo dejinaya subxaana. marka nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam wuxuu kamid yahay ambiyadii nabigeena calayhi salaam uu alla ku yiri markuu soo sardiyey oo kasoo sheekeeyey, ulaaika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi. kuwaas ilaahay hanuuniyey nabi maxamed oo lagu sheegay hanuunkooda ku dayo. nuux baa kamid a calayhi salaatu wasalaam. marka faqultu istakfiruu nuux uu yihi qoomkiisii, annagana waynoo taalla. nabiyullahi huud calayhi salaam asagona sidoo kale ayaa qoomkiisi uu kula hadlay oo uu leeyahay wayaa qowm istakfiruu rabakum uma tuubuu ilayhi yursili samaa uma tuubuu ilayhi yursili samaa calaykum midraara wayazidkum quwatan ilaa quwatikum. hayuu leeyahy qoomkaygiiyo
ilaahay u toobad keena subxaanahu watacaala. istakfiruu rabbakum uma tuubuu ileyh, dembi dhaaf ilaahay weydiista. astaqfirullah macnaheedu waxaa weeye ilaahay baan dembi dhaaf ka dalbaynaa. dembi dhaaf alla ka dalb. waan dambownay, ha gaf baan ku dhacnay, habeen baan dambownay, maalin baan dambownay, xumi baan ka dambownay, si walbaan u dambaawnay. dembigaana ilaahu dhaafay ka dhigan tahay astaqfirullah. waa erey aad u kooban laakiin macnihiisu aad u weyn yahay, qiimo badan, ajriga faa'ido badan laga helo. astaqfirullah alcadiim aladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum atuub ilayh. haddaad ku darto iyadana waa fiicanta. quwadiini buu ilaahay quwo ku ziyaadinayaa buu leeyahy, wayazidkum quwatan ilaa quwatikum. waxaa laga qaatay istikfaartu, waxaa laga helaa quwa laga helaa, waxaa laga helaa manaaca, waxaa laga helaa difaac xagga jirka ah ayaa laga helaa. qofka hadduu istikfaarta badiyo difaaciisaa badanaya, difaaciisaa badanaya, awooddiisaa xoogeysanaysa. cuduradan hadda faafaya arkaysaan, waxa uu la faafaya waxaa weeyaan qofkiibaa qof difaaciisa uu daciif yahay. waxyaalaha difaaca daciif ka dhigan waxaa kamid a halaca, murugta, walbahaarka, in adduunkiiba qofka uu noloshiiba ay ku adkaato, difaaci baa hoos u dhacaya. in qofka xayawiyadiisa iyo nashaadkiisa uu joogo, inuu caadi yahay, tawakul ilaahay uu tala saarto, lan yusiibanaa ilaa ma kataba allahu lana uu leeyahay, qanacsan yahay, jirkiisa caadi buu kusoo noqonaya. difaaciisi waa dhamaystiran yahay. laakiin marka horeba hadiiba wadnaha uu boodboodayo oo uu naxsan yahay oo uu aaminsan yahayba wax ka celinaya uusan jirin, qofkii waxaa weeyaan marka horeba meel eber buu sii noqonaya, isagoo lasoo gaarin buu sii baaba'aya. istikfaarta iyo tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta iyo waxaasoo dhan xoogga ayaa lagu helaa, caafimaadka ayaa lagu helaa. xataa waad ogta xadiidkii saxiixa ahaa ee gabadhii faadimaheeda nabiga u dhalay, faadimatu zahra radia allahu canha, waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii weeyaan oo aad u jeclaa. markii iyadoo raadsanayso khaadim ay nabiga u timid calayhi salaam, gurigiiba ugu yimid iyadii iyo saygeedii zawjkeedii cali abulxasan radia allahu canhum jamiican. markaasuu wuxuu yihi ma waxaad doonaneyseen khaadim? haa, wax ka fiican mayna siiyaa bu yihi, mayni sheega? haabay dheheen, haabay dheheen. hataa cali radia allahu canhu markuu hadalka nabigu uu yihi wax ka fiican mini sheega, faadimo hoosta ka qandhuftay, hahaadhe nahaadhe, wax kale inay ku hadasho ana khaadim maan rabnaa ay taagnaato ka yaabana. markaasay dheheen ha. markaasuu wuxuu yihi markaad saaxanaysaan subxaan allah dhah 3 jeer, alxamdulilah dhah 3 jeer, allahu akbar dhah 3 jeer. xadiiska kale dee salaad marka laga baxana waa kii iyadana laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shay qadir 100 ha laga dhigo. taasoo inaga khayr badan waxaad dalbayseen bu nabiga sala allahu alayh wasalam. markaad saaxanaysaan bu yiri, saaxadka maxaa ka horreeyey? shaqaa ka horreysay, tacab baa ka horreeyey, dhibaataa ka horreysay, shaqo badan oo lasoo qabtay iyo jirkii oo aad u daciifay baa ka horreysay. wixii dacfihaa iyo wixii wahsihaa iyo wixii daalahaa iyo wixii cajisahaa intaba waxaa dib u soo celinaya manaacada iyo quwada soo celinaysa waxaa weeyaan dikriga ilahi subxaanahu watacaala. culimo badan baa ka qaatay, shuraaxu lxadiid saasay ku fasiraan. maxaa nabiga calayhi salaam uu u yiri markaad saaxanaysaan la imaada? waxay leeyihiin tacabki, gabadhuna tacab bay ka sheeganaysay, tacab ma ka sheeganaysa? haa, waa tadaawadi. halkaasay culamada ka istimbaadeen oo kasoo qaateen. walidalika cali radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray weligay kama tegin buu dhihi jiray. markaasaa waxaa lagu yidhi walaa leylata sifiin, xataa habeenkii sifiin ee saxaabada mucaawiya iyo cali labada ciidan ay kala hogaaminayeen isku baaba-een oo intaasoo saxaaba iyo taabiciina iyo rag ay baaba-een, kurbad iyo walbahaar maalinta ugu dareeda, xataa habeenkaa kamaana tegin miya? walaa leylata sifiin buu dhihi jiray, xataa habeenkaa kama tegin, xataa habeenkaa kama tegin buu dhihi jiray. yani cilaajku waa cilaaj nabawi ah, daawada waa daawadii nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam. halkaasaa laga helaa dikriga ilaahay iyo alloo loo dhawaado, alloo loo toobad keeno, alloo loo tadaruco, alloo la baryo, ayaa balaayada iyo dhibaatada lagu faydaa subxaanahu watacala ku faydaa. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam isaguna waa kan istikfaarta uu leeyahay rabbana kfir lana, rabbana kfir lii fi suurati ibraahim wuxuu leeyahy rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaqumu lxisaab. ilaahay ii dhaaf, ikfir lii aniga iyo waliwaalidaya labadeeda waalid, waa intaan loo sheegin oo aabaha naar wey u duceeyey. walilmuminiina u dambi dhaaf buu yihi maalinta ay xisaabtu kici doonto. wuxuu ku ducaysanayey waa ibraahim khaliil الraxmaan imaamu tawxiid. waxaa weeyaan istikfaar iyo alla oo loo noqdo subxaanahu watacaala, taasaa meel lagu gaadhaa. nabigeena sala allahu alayh wasalam isagoo dembigiisii hore kii dambaba alla u dhaafay, kii hore iyo kii dambaba, haddana wuxuu leeyahay inahu la yuqaanu calىa qalbi wa inii la astakfir اllaha fi اlyowmi akthara min 100 mara wa fi riwaaya 70 mara. 70 jeer baan markaan xoogow dareemo inaan qalbigaygii u yar leexday
mashquulka caadiga ee dadka qabsada iyo wahsiga ama muxuuha kasalka ama halmaanka waxyaalahaas ku fasirayaan. maalin walba 70 jeer baan istikfaar la imaadaa buu ley nabiga sala allahu alيh wasalam, wahuwa rasuulu llah, waa nabi maxamed sala allahu alيh wasalam. riwaayooyinka qaarkood ilaa 100 buu gaarsiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ilahay naleeyahay markuu nabiga ka sheekeynay nabiga alayh salaatu wasalaam bidaayati suurati hud, anlaa tacbuduu ila allah inanii lakum minhu nadiiru wabashiir. ilahay keligii caabuda, anna waxaan ahay mid ini digaayo ini bishaareyna. waan istakfiruu rabakum huma tuubuu ilayhi yumatickum mataacan xasana ilaa ajalin musamaa wayu'ti kula dii fadlin fadlah. soo ma aragtid istikfaarti maxaa lagu helay? yumatickum mataacan xasana, wuu ini raaxeynaya alle, raaxo wanaagsan. raaxada maxay ku timaadaa? waxay ku timaadaa caafimaad inaad haysato, umaad raaxaysan kartaa. ammaan inaad haysato ku raaxaysan kartaa. inaad haysato owlaad baad ku raaxaysan kartaa. inaad wixii aad u baahneed oo mutadalabaadka adduunyada looga baahnaa aad haysato, raaxadii bay qeyb weyn ka tahy. maxaa lagu helaya marka raaxada? qof walbaba uu raadinayo, qof walbaba wuxuu raadinayaa raaxu raadin oo weliba la socoto sacaada. raaxa ay sacaada, jismiga in loo raaxeeyo keliya maaha, in qalbigaada uu habi yahay oo qalbigaada uu dumaaniino iyo xasilooni ku jirto oo deganaan ku jirto oo aad ku raaxaysanayso wax alle uu ku siiye ku qanacsan tahay. raaxada halkaa weeyaan, waa qalbiga. yumatickum mataacan xasan, istikfaarta haddaad badiso maxaa walbahaara, maxaa kurbaa, maxaa xanuuna, maxaa mashaakila, wax dhan waa zuulayaan. ilahay waa ku raaxinaya subxaanahu wa tacaala. ayuha alikhwa walakhawaat aynamaa kuntum, meel kastoo joogtaanba, istikfaarta waxay leedahay ahamiyad iyo aathaar iyo raad. ahamiyad aada u weyn ayay leedahay istikfaartu. ahamiyadeeda haddaan sardino oon qodob qodob u dardulmaro, anoon rabin inaan dheereeyo, waxaa kamida alqurbu min allahi tacaala wa katrat atacaluqu bih, in ilaahay loo dhawaado. ilahay bay ku dhaweynaysaa istikfaarta. astakfir llah haddaad tiraahdo, rabbi subxaanahu wa tacaala calaaqadii dhexdiina xumaatay ee dembi eed ka gashay eed ka fogaatay subxaanahu wa tacaala waad ku dhawaanaysaa haddaad astakfirullah tirahdo. ilaah waan galay dembi, waase soo laabanaya, calaaqadiina dhawaanaysa. xataa uu nabiga calayh salam xadiid lqudsi ilahay ka warinay uu leeyahay, ana maca cabdi, ana maca cabdi xiina dakaranii. markuu xusayo maciisaan ahay, maciya khaasa, waa maciyo gaar ah. binasri watayiid, waa ku gargaari, waa ku xoojini, waa ku ilaalini, waa ku xifdini. xiina dakaranii wataxarakat bi shafatah, marka uu xusaayo oo carab bishibihiisa aniga tartaya udhaqdhaqaaqayaan. subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar laa ilaha ila allah ad leedahay, ilahay maciisi baa tahay. qofki ilaahay maciisa uu noqdana dee waxaa weeyaan waa ku filan yahay. alaysa allahu bikaafin cabda, ilahay addoonkiisa waa ku filan yahay subxaana wa tacaala. ilahay baa xifdinaya. ilaahu kun macana, ilaahu macanaga ahaw, oo noo dhaaf, oo na cafi, oo na saamax, oo na ayid, oo noo gargaar. marka waxaa lagu helaa istikfaarta lagu helaa. marka waxaa kamid a ahamiyada istikfaarta ay leedahay, waa sabab fi tafriiji اlkurab can اlcibaad wainshiraaxi الsuduur. kurbooyinka ayaa qofka laga fayda, xabadkiisana ilahay waa sharxaa, waa iftiimiyaa, waa waasiciyaa, waa ka saaraa murugta iyo kurbada iyo dhibaatada o dhan buu ilahay ka saaraa subxaanahu wa tacaala. inshiraax ayuu siinayaa. 3 waxaa weeyaan waa sabab fi dukhuuli janaati الnaciim, jannadaaba lagu galaaba. istikfaartan waxaa ugu weyn ee qofka muslimka uu raadinayo waa inuu jannada galo, naarka ka badbaado. hada huwa alfalaax. liibaanta aad maqlayso qofka waa liibaanay, waxaa weeyaan gaayada meesha u dambaysa la dhihi karo waa liibaanay, waa inuu janno galo, qofka naarka ka badbaado. janno maxaa lagu galaa? istikfaarta lagu galaa. markuu ilahay ka soo hadlay jannada, usaaricuu ilaa makfirati min rabikum wajannati carduha asamaawaat waalardu cidda lilmuttaqiin. jannadaa intaa baaxad leh, mutaqiintaa loo diyaariyey. mutaqiintii loo diyaariyeyaa kamida, waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llah fastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah. markay intay xumaan ku dhacaan, dambaabaan, ilduufaan, simbiraxoodaan, zallo ku dhacdo, kuwa intay ilaahay xasuustaan, alla usoo laabtaan, istikfaar la imaadaan, garta inuun alla mooyan wax kaloo dambiga dhaafi uusan jirin, kuwa ayadaa jannada kuwa galay cidda lilmuttaqiina bay soo gelayaan. sayi-aadkoodii baa xasanaad loogu bedelaya, kama fi suurati alfurqaan cibaad uraxmaan ilahay kaga sheekeeyey. waxaa kamida ahamiyada ay leedahay istikfaarta, waa sabab fi safaa'i اlqalbi wa naqaa'ihi wa shucuurihi biraaxa. qalbigu inuu nadiif noqdo oo uu dhahirmo oo uu dareemo qofka qalbigiisu raaxa inuu ku jiro. dad waxaa jira maal leh, awlaad leh, xoolo leh, meel farag saaran, meel wax fiican ku socda, wamaca dalika aan raaxa ku jirin ayaa jira. raaxadaas waxaa lagu helaa istikfaarta lagu helaa.
dikrigaa lagu helaa. waa kuu leeyahay ilahi subxaana fi lqur'aani alkariim aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illahi tadma'inu lquluub. dikriga ilahay buu qalbiga ku xasilaya. xasiloonida qalbiga waad aragtay gaalada iyo kuwa macaasida iyo dembiga ku fogaaday quusas baa ku dhacaya. markaasa waxaa arkaysaa iyagoo wax walbo barwaaqo leh guryaha korkooda iska soo tuurayaan, waa isgawracayaan, waa sunbaysa siinayaan. waxaasoo dhan maxaa sabab u ah? iimaan la-aan. waxaa sabab ula qanaaca la-aan. waxaa sabab ula alla ina aqoonsaneen. waxaa sabab ula qadar biinan ogoleen oo ogeyn. waxaa sabab ula ilahay bana tala saaranayna subxaana. qalbigoodii baa marka cariiri ku jiraayo noloshoo dhan baa ku cariiri noqotay. markaasay deena maciisha danka ku jiraan. waxaa kamid ah ahmiyada walaalayaa ay leedahay istikfaarta oo la badiyo. waa sabab fi dafci lbalaa aladi qad yusiibu linsaan. balaayada insaanka ama bini aadamka ama basharka ku dhici kara ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku difaaca. difaac waa difaac. marka horeba gaashaanka hore ee qofka ilahay ku difaaci kara waxaa kamid a istikfaarta inuu badiyo. ammaan buu ku heli, uu kaga badbaado wax allala wixii dhibaataha ama cuduradii ama masaa'ibtii ama wixii o dhan ilahay baa ku badbaadiy subxana wa tacaala. waa ka ilahay qur-aanka ku leeyahay wma kana allahu liyucadibahum waanta fiihim wma kana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. ilaahay ma cadaabayo dadka nabi muxamedow adoo ku dhex jira, adoo nool ummadan cadaab kusoo degi maayo. waxaa kaloo cadaab ku dhacaynin camima oo baabi'iya intay istikfaarta wadaan, intay istikfaarsanayaan. laakiin markii dembiga la galo oo haddana la galo oo lala jahro oo ilbaxnimo weeya la yidhaahdo oo la yidhaahdo waa dhaqan muxuu aha hadda soo baxay oo casri ah la yidhaahdo oo dhalinyaradii iyo raggii iyo haweenkii intaba mid sameeya iyo mid uqosla iyo mid fiirsado la noqdo, de waxaa weeyaan tacumu saalix wa daalix. dhibaatada way camimaysaa. markii nabiga sala allahu alayh wasalam uu yiri xadiidkii umu salama isagoo gurigeeda joogo fi riwaaya zaynab labada midba ayaa nabiga alayh salaam wuxuu yihi weylu lilcarabi min shari qad iqtaraba futixa alyawm min radmi yajuuja wamajuuja haakada waxallaqa bayna isbicay. juuja wamajuuj baa meesha wax yar maanta furtado halaag baa carab kusoo wajahan. markaasa waxay tiri gabadhii umuhatulmuminiinka xaaska nabiga alay slam qiimaan badneed anahliku wafina saalixuun, miyaan halaagsamayna wixii saalixiinta nagu jiraan? nacam idaa kahura alkhabath. haddii xumaantu badato waa la halaagi saalixii muuminkii caasigii wixii o dhan gaal muslim baa lasla halaagaya. lakin qof walba niyadiisa lagu soo saaraya. marka arrimaha waxaa laga hortagi karaa in dembiga laga hortago oo munkarka la inkiro oo istikfaarta la badiyo oo alla loo noqdo. aayaddaasna u daliila. ibnu cabaas radia allahu canhu wuxuu leeyahay asagoo aayaddaasi ishaaraya in allaha jacala fi hadihi اlumma amaanayni laa yazaaluuna macsuumiina mujaariina. ilaahay wuxuu dadka usoo dejiyey laba amaan in la ilaalin oo ilaahay xifdinaya ka zuuri maayaan min qawaaric alcadaab. cadaabka kiisa garaacaya korkaas ka imaanaya ilahay ka xifdinayo maadaama bayna adhurihim. labada amaan intay haystaan ilahay cadaabka kor kaga imaan waa ka ilaalinaya. markaasu wuxuu yihi faamaanu qabadahu llahu ilayhi, mid ilaahay baa oofsaday oo qaaday waa nabi maxamed sal slam. wa amaanu baqiya fiikum, mid baad haysataane ku dadaala. midkii ahaa nabi maxamed xadiis intuu joogo ilahay ma cadaabay. nabi maxamed dhimay hadda dhexdaana ma joogo sala allahu alيh ali wasalam, waa dhintay. ilaahay wuxuu geeyey darajadaas ciliyiin. laakiin maxaa soo haray amaankii labaad oo ah istikfaarta. labadaas ay ummaddu ku nabadgelaysay nabigoo dhex jooga iyo istikfaarta inay badiyaan. laakiin haddii istikfaar laga tago oo ducada laga tago oo alla kacabsiga laga tago qul maa yacbau bikum rabbii lawlaa ducaaukum, dan ilahay kaama gelayo subxaana wa tacaala, waxbana kuu fali maayo. in la badiyaa loo baahanya. waxaa lagu helaa istikfaarta inzaal اlamطaari wاlarzaq wainbaat الnabaat, in roobka uu do-o oo muxuha irsaaqada la waasiciyo oo nabaadka iyo midhuhu ay baxaan. aayaddii fi suurati nuux iyo fi suurati huud labadaba waa ki ilahi subxaana wa tacaala ku sheegay. waxaa lagu helaa istikfaarta oo la badiyo raxmadda ilahi subxaana wa tacaala, naxariista ilahi ama addunya ama aakhar labadaba naxariista ilahi baa lagu helaa. markuu ilah leeyahy qaala yaa qowmi lima tastacjiluuna bالsayi'ati qabla اlxasana lawlaa tastakfiruuna allaha lacalakum turxamuun. maxaa dhacay ood xumaan iyo sayaa ugu degdegaysaan xasanadii ood haysataan? istikfaarsi maad la imaataan oo ilahay usoo laabataan. ilahay wuu idin naxariisani. naxariistaa ilahay uu naxariisani maxaa kamida raxmadiisa waasaca ee xagga nabadgelyada, ee xagga caafimaadka, ee xagga ceeshka iyo nolosha, ee xagga dembi dhaaf oo naar laga badbaadaa lacalakum turxamuun soo wada gelaysa. ilahay waa noo dhaafaya subxaana wa tacaala.
استغفارta marka walaalayaal aan badino gaar ahaan xilligan adag ee lagu sugan yahay muslimiinta meel walbaba caalamkii qeyb kamida way muslimiintu wixii ku dhacaya ku wada dhacaya saa darteed istighfaar buu iyaga ilaahay siiyey meesha ay gaaladu ayna rabbi aqooni oo meel ay cararayna garanayni annagu fafiruu ila allah ilahay baanu cararayna subxaanahu wa tacaala awqaada istighfaarta ee qofka muslimka la rabo inuu ka faaidaysto jaaniskeeda xilli kasta qofka muslimka inuu ilahay u laabto oo ilahay u toobad keeno ayaa loo bahaya gaar ahaan xataa fi ahmiyada ay leedahay istighfaarta waxaa laga qofku inuu yihahdo ani gormaan dambaabay waxaaba istighfaarta waqtiyaheeda kamid a fi khitaami alacmaali saalixa acmaasha saalixada markii lala imaado in laguba khatimaba salaada u fiirso nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam asagoo salaad tukaday oo silatu lcabdi lirabihi adoonka xiriirka uu rabbi laleeyahy waa salaada qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii walicabdi maa saal salaadda waxay u qaybsan tahay faatixada lagu akrinaayo adoonka iyo rabbi maruu adoonka hadli iyo rabbi u jawaabi iyo maruu ducaysta rabbina le u aqbalay wixii ay sidaa tahay oo ajirka dambi lagu dhaafo oo ilaahay subxaana watacaala adoonka markuu ugu dhow yahaya ayuu haddana nabiga markuu salaada ka baxo wuxuu dhihi jiray astakfirullah 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 3 jeer ayuu dhihi jiray u fiirso bal wax gaabin ah oo waxuuha naqsi ah oo aad xoo salaada sideedii si aan ka gaabisay amau dhacaa astakfirullah naqsigii iyo nusqaantii baa lagu maarata kabaya jabitaankii baa lagu kabaya wixii darajadii baa kor lagu qaadaya xilligaasoo nabiga salaada uu tukaday wuxuu le astakfirullah isagood ogtihiin imaam lkhashiciin inuu ahaa inta khushuucda ee liibaantay qad aflaxa almuuminuuna aladiina hum fi salaatihim khaashicuun imaamkoodi waa nabi maxamed sala allahu alayh wasalam intaa liibaantay ee salaada ku khushuucda rasuulka alayh salaam baa imaam u ahaa wamaca dalika markuu salaada ka baxo astakfirullah buu dhihi jiray cibaadada marka gadaasheeda oo lala imaado istikfaarta awqaadeeday kamid tahay inaad mar walbaba tiraahdo muqasir baanahay waan gaabiyey ooda isku arkin waan tukadayo waan muxuu xajiyayo waan soomayo ale waan sadaqaystayo waan ficlahay aada taagnaanine xataa wixii aad la imaatay aad tiraahdo sidii la ii diray ee la ii amray oo lama imaanin sidaa darteed astakfirullah wixii naqsi ah waan kasoo noqona inaad tirahdo ayaa loo baahanya xajka fiiri xajka oo arkaanta islaamka kamida rugniga shanaada oo dembiga lagu dhaafo maalinta hooyadii qofka dhashay oo kale uu nabiga alay salam yiri janno mooye wax kala abaala mala yiri wamaca dalika markii la bogo maxaa la yiri uma afiidu min xayثu afaada الnaas wاstakfiru الlah uma afiidu min xayثu afaada الnaas markaad xajka aad carafo tagtaan oo kasoo butaacdaan oo yowma carafa u fadli badan maalmaha xijka yaa waxaa le wاstakfir الlah istikfaar la imaado dambi dhaaf ilahay weydiista mar walbaba iyadoo sidaa tahay istikfaartu haddana waxay waajib noqonaysaa qofku mar allaala markuu dembi ku dhaco macsiya ku dhaco inuu ilahay usoo laabto subxaana wa tacaala awqaada ugu fiicanna waa awqaat waqtiga suxuurta aakhiru leylka wabilasxaari dadkii wanaagsanaa qiimaha badnaa ee markay dadka kaafiliin yihiin hurdaan adduun ku mashquulsan yihiin raaxo ay qalbiga kuwa ayaga ah ee muuminiinta ee waxaa laleeyahay wabilasxaari hum yastakfiruun xilligaa suxuurta ee aakhiru leylka ee gobashaytii qabowdo jirka o dhan u wada dabco qofka uu si fiican u hurdo xilligaas intay kacaan ayay ilaahay subxaana wa tacaala istikfaar iyo dambi dhaaf ayay weydiistaan dambi dhaaf ay weydiistaan ilahu noo dambi dhaaf ay dhahaan wabilasxaari hum yastakfiruun markaasuu ilaahay subxaana wa tacala dhibaatada iyo dhibkao dhan ba uu ka ilaaliyaa kana koryeelaa istikfaarta walaalayaal aan ka hadlaynay muhimka ah qof kastoo muslimana laga rabo inuu daa'imo oo carabkiisa uu baro waxay leedahay siiqooyin fara badan bay leedahay waxay kaloo leedahay amaakin iyo meelo lala imaado oo gaara iyadoo xilli kastaba la rabo waxaaba mid kamida mid la yihahdo sayid listikfaar istikfaar sayid bay u tahay istikfaartii kale bay sayid u tahayba oo ninkii la imaaduu nabigu calayh salaam yihi maalin hadduu maalintaa dhinto inta gabalka una dhicin jannadu gelaya habeenkii hadduu la imaado istikfaarta noocan soo socota haddii intuu waaga beryin uu dhintana jannu gelaya baa la yihi sayidulistikfaar baa la yihahda waxaa tifka ah tawxiidka iyo ifraad ullahi lcibaada iyo qofka inuu qirto dunuubtiisa iyo macaasidii wixii ka dhacay iyo inuu qofku ogaado inuu alla mooyn wax kalo wax dhaafayo uusa jirin inuu nicmada ilaahay uu siiyay u qirto waxaasoo dhan oo keenaya inay istikfaartan soo socotay siiqada ay noqotay sayidulistikfaar baa ka buuxda waxaa weeye siiqadeedana nabiga alayh salaam baana baray wuxuu leeyahay allahuma anta rabbii laa ilaha ilaa ant khalaqtani wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma stadactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu laka binicmatika calay wa abuu laka bidanbii fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant xadiidkaa weeyaan waa la xifdin karaa xadiid saxiixa haabit can rasuuli llahi sal l slam ka sugan nabigeena
كسوغا في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله وهي سيد الاستغفار إن إلهي سبحانه وتعالى أقرت وحدانيديسي kadibna addoonnimadaadii iyo cahdigii iyo wixii lagu diray inaad ku dadaali inta tabartaa aad ilaahay ka mangasho wixii sharaho qofku uu sameeyey uu qirto nicmada alla u galay uu qirto wixii dembi oo ka dhacay kadibna uu yihahdo fakfir lii fa inahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta sayid listigfaar baa la yihahdaa ninkii la yimaado maalintaas hadduu dhinto jannu gelaya habeenkii ninki la imaado jannu geli nabi sal slam waxaa kamid ah istikfaarta markii qofku uu ka baxaayo xataa fiiri ahamiyada ay leedahay kutusaysaa musqul baad gashay markuu qofka musqul uu gala ama uu baytulmey gala ama jah uu galo waxaad tiraahda khalah lama ogolo intuu musqushaa ku jiro wax dikriya inuu la imaado macduur wey dambi lama imaan karaba adoo musqusha fadhiyo subxaan allah iyo istakfirullah iyo qur-aan akris iyo xataa muadinkii ood maqlaysa aadaankiisii oo wuxuu dhaha ka dabadhaha la yiri maya dib baad udhiganaysa kama daba dheheysid wamaca dalika qofkii sidaas ahaa ee lagaba koryeelayba inuu wax dikriya la imaado xilligaa musqusha uu ku jiro nabigeena markuu soo baxo waxau dhihi jiray wuxuuna amray inuu la dhaho gufraanaka fiiri gufraanaka waxaan ku weydiisanayna allow gufraanaka dambi dhaaf inaad noo dhaaftaan ku weydiisanayna hada yadul calى ahamiyat اlistigfaar fi kuli xiinin wa-aan intaa yar eed aad hadli karin markaad ka soo baxdo musqushiiba waxaa leedahay gufraanaka baad leedahay weysadii oo markaad weysata iyadana laleeyahay siyaqda kusoo aroortay weysada way badan tahay lakin waxaa kamid a subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk ayaa kamida xadيث النسائي uu soo saaray في cmل اليوم والليلة xاakم في المستdرك kusoo saaray min xadيث أبي سعيد الخdري xاaفظ بن حجر uu leeyahay والسند صحيح laa rayb xadيثka sanadkiisa صحيح wey shakina kuma jiro لأnna waxaa khilaaf ka taagan yahay hal huwa mوquف calى بن مسعوudi calى أبي سعيد الخdري ma mوquف ku yahay mise marفوع ilى النبي halkaas murama ka taagan lakin كون السند صحيح u yahay shaki kuma jiru leeyahay sheekh الألبانيna في صحيح الترغيب buu ku صحيح yeelay xadيثku waa xadيث صحيح wey waxaa kamid ah كفاaraة المجلس qofka haddii meel uu fadhiyo waxoogu laqadka iyo hugunka iyo hadalka uu bato markuu kacayo inuu la imaado subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk inuu yidhahdo xadiidka abu daawud iyo tirmidi ay soo saareen albani u saxiix yeelay min xadiid abi hurayra ee saxiixa thaabitka kafaarat almajlis baa yihahda majliska aad fadhiday wixii kaa dhacayo waxoogu laqwi oo laga fiican yahay idin inaad maarata la imaato istikfaarta ku khatinto ilahay baa dhaafay kuu dhaafaya marka masaajidka la gelayo oo meel cibaada oo meel taaca oo meel sujuuda oo meel khayra haddaa laftirkeeda ducada lala imaaday kamid ta allahuma kfir lii dunuubi waftax lii abwaaba raxmatika xadiidka asaga ayaa isaguna waa jiraa oo cabdirazaq iyo dabarani ay soo saareen midka mashhuurkaa saxiixa asaga waa jiraa oo allahuma kfir lii dunuubi nabiga ta ku salida calayhi salaatu wasalam aad tirahdo allahuma kfir waftax lii abwaaba raxmatika aad tirahdo ayaduna thaabitkae saxiixan waa sugan yahay waa jiraa waxaa kamid a istikfaarta xiliyaha la badinayo amaakinta tashahud alakhiir ataxiyaadka u dambeeya markaad la imaato inaad ku khatinto inaad ilaahay subxaanaه watacaala dembi dhaaf weydiisato abu bakr sidiq radi allahu canhu saaxibu rasuuli الlah saaxiibkii nabiga alayh الsalaam id yaqulu lisaaxibihi laa taxzan qur-aanka ilahay lagu sheegay hal qof ba la sheegay nabiga saaxiibkiis qur-aanka lagu sheegay abu bakr sidiq radi allahu canhu yaa nabigu u yimid wuxuu nabi allow waxaad i bartaa ducaan ku ducaysta fi salaatii salaada dhexeeda markaasu wuxuu waxaad tirahdaa allahuma inii dalamtu nafsii dulma kahiira fi riwaayatin kabiira imaam الnawowi wuxuu leeyahy labadaba in isku daraa fiican kahiira kabiira allahuma inii dalamtu nafsii dulma kahiira kabiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta fakfir lii makfirata min cindika warxamni innaka anta algafuur raxiim marka atixyaadka waa lagu khatimaya istikfaarti waa lagu khatimi salaadii ahamiyada ay leedahay bayna intaaso dhan kutusaysa walaalayaal waxaa kamid a marka salaada la bogo waa soo sheegnay wixii nabiga alayh salaam u horeeyay uu la imaan jiray astakfirullah bay ahayd soo sugnaa xadiid waa jiraa bukhaariga uu soo saaray fi saxiixihi oo riwaaya ibnu cabaas radi allahu canhu le bitakbiir oo culamada ay ka hadlaan takbiirta ma waxaa loo wadaa takbiirtii adkaarteeda ka dambeysay mise midda u horeysa wuxuu nabiga alayh salaam ku hadlo lakin astaqfirullah astaqfirullah saddex jeer inuu dhihi jiray allahuma anta asalaam waminka asalaam nabigeena way ka sugan tahay sala allahu alayh waalihi wasalam marka walaalayaal fi hada darf alcasiib waktigan culus ee jaayaxadan iyo masaa'ibtan waaweyn iyo cuduradan amraadan waaweyn ay dhacayso wax kale oo meel kaleo la aadi ma jirto gaalada waad ogtihiin waa kibreen wax weyn bay isbideen awood bay sheegteen aqoon badan bay sheegteen waxaynan ogeyn bay sheegteen inay og yihiin meelayna arkin bay sheegteen in arkayaan waxaynan maqal bay sheegteen inay maqlayaan dhibaato badan bay la yimaadeen rabbina waa u naxariistay in badan buu ilaaliyay adduunyada ku dhowray laakiin markuu rabo ilahay ka argoosanaya marka ayagu meelay u cararayaan oo kale way jirtaa markay dhibaato ay ku dhacdo dacaw llaha mukhlisiina lahu diin ilahay baa sheegay gaalada
laakiin muslimku waqti walbaba asaga waxaa weeyaan waa inuu cibaadadii iyo alla barigii iyo alla unoqodkii iyo istikfaartii iyo tasbiixdii iyo taxmiiddii waa inuu badiyo. istikfaartaasaa kamida, kuwa kalena waa lamid. subxaan allah iyo alxamdulilah baa kamida, waxyaalaha murugta iyo walbahaarka lagu saaro ayaa kamida. waka ilaahay nabigiisa uu ku leeyahay walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin wacbud rabaka xataa yatiyaka alyaqiin. fasabix bixamdi rabbika kun min asaajidiin. waan ognahay baa li nabi maxamedow anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun, waxa gaaladay ku hadlay afxumaa edab la-aana inaad aada ugu murgeyso ku xanuujinayso ee tasbiixda iyo taxmiidda badi baa li nabiga calayh salaam, sujuudda iyo salaadana badi baa li sala allahu alayh waalihi wasalam. innagana waa inoo taalla walaalayaal, maanta laa malja'a walaa manja'a min allahi ilaa ilayh. meel loo carabo iyo wax lagu baqdo ma jirto xag aan lahayn. qofkii dhintaa oo cudurkaasa uu ku dhacana daacuun weeyaan, daacuunku kamid yahay shahaada fii sabiili illahi baa loo rajinaya, isagoo ku sabirsan, ka cararaynin, joogo meeshiisii. qaabkii uu nabiga calayh salaatu wasalaam uu yihi amraadda iyo cuduradan hadday meel ka dhacdo idinka oo meeshaa jooga haka bixina, haddii meel kale ku dhacdan ha gelina, kuna sabra. qofka asagaa waa shahiid buu nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam. wixii muslima oo ku dhintana ilahay shahiid hooga dhigo, wixii kale oo muslima oo caafimaadsan caafimaadka allah usii ziyaadiyo, wixii xanuunka uu hayo uu ku dhacana ilahay caafimaad ha siiyo. innagana ilahay hanaga xifdiyo, ilahay dhibaatadiisa hanaga kor yeelo. musiibo weeyaan dembigeenii iyo macaasideeni unbaana iyuu ku yimide, rabbi baan u noqonaynaa, u toobad keenaynaa, oon u cararaynaa. rabbi ow na cafi ow na saamax, rabbi ow noo dhaaf, rabbi ow dhibaatada naga kor yeel. allahuma inaa nacuudu biridaaka min sakhatika, allahuma inaa nacuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wabika minka laa nuxsii hanaan calayka anta kama athnayta calaa nafsika. allahuma inaa nacuudu bika min jahdi اlbalaa wadaraki الshaqى وسuء القضاء وشماadة الأعداء. اللهma إنا نعuudu bka من الbrس والجuذاm والجنون وسيء الأسقام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكرا لكم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.